السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما هو مرتي معنى قاريو وجيدله ملقدي أفكا هويو مرايدي سويال كينا مرتدا أن ما أنت إيدين هيو معنى حيل دير إيو ميزان علوس بايلاد حي انت آنان هوري uguda gelin murtida aan maanta idiin soo xulay ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa da'yartii ku taxnayd barnaamijkaygii hore ee murtida toddobaadka waxaad ku mahadsantihiin dhiirigelinta iyo codsiga aad ii soo dirsateen in aan dib u bilaabo murtidii koobnayd ee aan ku soo jeedin jiray fariintii wacyigelinta ee ku socotay da'yarta mar kale waad mahadsantihiin ee aan idiin soo gudbiyo murtida aan maanta idiin hayo ama Soomaalidu siday tiraahdabo bahal lalama darso hadaba si fiican u dhageysta bahal lalama darso waa murti fudud eraya ahaan macnaheeda aad iyo aad u fudud oo qof walba uu fahmi karaa bahal waa dugaag dilaa ah dhaqan wuxuushnimo leh oo aan naxariis lahayn ee aan nafta lagu aamini karin marka dabcan cidna inay guurto bahal lama darsayso oo sababta nafteeda uga baqaysaa marka xigmadda macnaheeda caadiga ah waxayna tusinaysaa bahalka inuu dhibaataynayo oo naftana bani aadamka naftana lagu aamini karin marka maxay leedahay bahal lalama darso haddaba macnaha ay waaqicaani na siinayso iyo xigmadda ku jirta ee maanta aan u baahannahay inaan isla fahamno maxay tahay yaray waxaa ka mid ah wax walba oo nafta bani aadamka dhibaato ku ah ayaa wuxuu noqonayaa bahal wax walba oo dhaqanka qofka wanaagsan dhaqanka suuban ee qofka dhibaato ku ah ee caqliga dhibaataynaya ee horumarka qofka dhibaataynaya ayaa waxay ku noqonaysaa meeshii bahalkii buu galayaa asxaabta xunxun ma ahan xumaanta kaliya asxaabta inay darooga isticmaasho ma ahan kaliya asxaabta in ay isticmaasho muqaadaraad noocyo kala duwan ama ay balwad leeyihiin ama ay ku jiraan kooxo rabshado iyo dil iyo dhibaato ama dhac geysanayso waa kuwaasi waa dhibaato waa khatar laakiin xitaa waxaa ka mid ah namiimla haddaad la saaxiib tahay daris baad la tahay naftaaduu dhibaato ku yahay adigu shakhsiyan magacaaga iyo sumcadaadii buu dhibaataynaya sababta saaxiibka waxay uu yahay bay dadkanu kugu tirinayaan ugu dambeynna wuu ku saameynayaa beenaalaha qabyaaladiistaha warxuma tashiilka dadka niyad jabiya dhammaantooda marka xigmaddan waxaa macnaynaysaa xigmad kale oo aan wax badan ka agfogeyn ee dhahaysa guri fiican lama gato ee jaar fiican baa la gataa macnaheeda haddaad adiga fiican tahay oo qof fiican tahay laakiin aad dhex tagto saaxiibada aad samaysatid ay yihiin kuwa xunxun ujeeddada aad u gashayna aad saaxiibtinimo ka dayeysid maxay kugu hogaaminayaan xumaantooda laakiin haddii dadka aad ula saaxiibtid inaad iyaga ka wacyigelisid aad ka keentid xumaha iyo dulliga iyo dhaqan xumada iyo namiimka iyo xasadka iyo beenta iyo wax walbo xun marka ujeeddaad ula saaxiibtay oo ujeeddada iyagaad ka wacyigelinaysaa laakiin inaad ula saaxiibto saaxiiba doonis waxay la mid tahay guri fiican oo lagu dhex sameeyey jaar xun dhexdooda uu ku dhex yaallo adigana sidaas oo kale bahal lalama darso haddii naftaada aadan bahal ku aaminaynin wax walba oo ku dhibaataynayana naftaada ha ku aaminin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh